been hawaas xaafadii oo deganaa ayaa duco ka jirtay. Ducadaas asaga lagama marti qaadin, wuuse aaday ee muxuu kala soo kulmay. maalin maalmaha ka mid ah, been hawaas oo gurigiisa joogo waxa uu arkay saaxiibadiis. Waxay u sheegeen xaafad dariska ah oo nin taajira deganaa in ay duco ka jirto, ducadaasna ayaga aan laga marti qaadin. been hawaas markii uu maqlay in ay halkaasi ka jiraan maanta duco, waxa uu soo aaday gurigii ducada ay ka jirtay. laakiin waardiye ayaa loo samaystay oo dadka dhuunayaasha ama qaraabtoyda ka celinaya ee aan invitationka wadan. aad iyo aad ayuu uga naxay arrintan. wuxuu yidhaahday waa xeelad cusub. waxa uu ku noqday been hawaas gurigiisii, asaga oo doonaya dharka inuu soo bedesho, kuna fakaraya qaabkii uu meeshan ugu geli lahaa. gurigiisii markii uu tegay ayuu waxa uu soo qaatay dhar cusub. wuu soo kaatamay, waxa uuna soo istaagay albaabkii gurigii alibariga ka jiray. dadkii markii ay soo baxayeen ayuu isku soo dhex daray. wuxuuna u tegay ninkii waardiyaha ahaa. waxa uu ku yidhaahday, warniyahow, alaab ayaan isaga soo ilaabay gudaha, ma ii dooni kartaa? isaga oo iska dhigaya sidii in uu dufan iska tirtirayo. meeshana waxaa jirtay buuq aad iyo aad u fara badan. martida imaanaysa ayaa badneed iyo dadka la celinayay. wuxuu yidhaahday kii waashmaanka ahaa ama waardiyihii meesha la dhigay, warniyahow, aniga hadda kuma caawin karo, aniga ayaa mashquulsan, ee adiga orod nafsad ahaantaada gudaha gal ee alaabtaada soo qaado. been hawaas sidaas ayuu gudaha ku galay. markuu gudaha uu galay meel dhexa istaagay, waxa uu yidhaahday, dadkan boqolada ah waxay isku dayaa mar walba in aysan noo ogolaan in aan gudaha soo galno, annagana waan soo gelaynaa sidii aan kusoo galnaba. kadibna waxa uu tegay meeshii martida ay fadhisay. martidii ayuu dhinac ka fadhiistay. hilibkii loo keenay ayuu wuxuu ku bilaabay cunow iyo boobitaan. dadkii martida ahna meesha ayay fadhiyaan, waa ay nala yaabanaayeen. waxaana imaaday ninkii guriga iska lahaa martiqaadka sameynayay. markii uu arkay been hawaas oo meeshan fadhiyo oo raashinkiina cunayo, waa uu ka naxay, waa uuna xanaaqay. haddii uu hadlo waxa uu ka baqay in ay meesha dhan ay buuq noqoto. caradiisii ayuu qarsaday. been hawaasna cidna uma aaba yeelin, ee markii uu cunadii uu cuni lahaa cunay ayuu iska dhaqaaqay. ninkii guriga iska lahaa ayaa waxa uu yidhaahday, war nimankan iyo qaraabtoyda si kasta oo loo celiyo, waxaad arkaysaa ayaga oo gudaha soo galay. nimankii martida ahaa ayaa waxa ay yidhaahdeen, anagu si walba waxaan isku daynay in aan dadkan alibariga ama ducada aan dhiganayno aan ka celino. nasiib dara laakiin waan ku guulaysanaa oo mar walba waxaan aragnaa ayaga oo soo galay gudaha. ninkii martiqaadka sameynayay ayaa waxa uu yidhaahday, mar dhow waxaa soo socda arooska wiilkayga, waxaa igu ballana in aan xeelad u keeno. xeeladaas oo aan nimankan qaraabtoyda ah ama dhuunayaasha aan isaga mamnuuco, aysan gudaha aysan usoo gelin. nimankii la marti qaadayna waxay yidhaahdeen, horey ayaan waxyaabo badan isaga tagnay oo soo daynay in aan wax ka qabanno, laakiin mid kasta waxay ku dhammaataa fashil, oo anaga oo xanaaqsan ayay meeshaas ay nooga guulaystaan. ninkiina dadkii ayuu sagootiyey. wuxuu yidhaahday, oo asbuuc ayaa ka dhiman arooska wiilkayga, waa in aan qorshe aan u keenaa si uusan been hawaas iyo tiimkiisa aysan u imaanin. cabaar ayuu fakaray. maalmihii way isgureen, waxaana la gaaray maalintii oo wiilkiisa ducada u samaysan lahaa. wuxuu u geeyay invitation qof aan wadan, ha iisoo daynin waardiyaha ayuu yidhaahday. sidoo kale waxa uu yidhaahday, qor kale ayaa jiro, qorkaas jarjarada u geeyey. waxa qaraabtooy ah oo dhanba meeshaas ku wada xaray. kadibna jarjarada iga soo qaad, been hawaas iyo tiimkiisana meeshaas waa inaad ku ogaataa ayuu yidhaahday. sidaas ayuuna sameeyey. dadkii martida ahaana albaabka hoose ayuu u furay. albaabkana wuxuu ahaa markii la galaba mid la xirayay. isagana jaranjaro ayuu keenay alwaax ka samaysan, dirshad kor saaran ayuu hoos dhigay. wuxuu yidhaahday, tan ha fuulaan, waxaa dhahda halkaas ayaa laidinku marti qaadayaa. been hawaas oo sida cadiisa gurigiisii joogay ayaa waxaa loo sheegay gurigii maalinkii maantana in ay ka jirto aroos, oo ninkii baqiilka ahaa wiilkiisa inuu aroosayo.
wuu soo baxay dhammaantood. Haddii meesha imaadeenba waardiyihii ayaa soo dhoweeyey. Beenhawaas wuxuu yidhaahday qorshe noocaana muxuu ahaa, weli anigoo ciddan kuma arag soo dhoweyn intaas leeg. Waxaana loo sheegay kor in loo marti qaado ayaga, korkaasna ay fuulaan, halkaasna loogu samayn doono xafladooda ama qadadooda loo geyn doono. Beenhawaas iyo tiimkiisiina waxa ay fuuleen jaranjaradii, korkii kale ayay fuuleen. Markay dhammaan kor fuuleenna waxa uu sameeyey ninkii waashimaanka ahaa ama waardiyihii meesha la keenay, daaqadii ayuu u xiray, kadibna waxa uu ka qaatay jaranjaradiisii. Dadkii kale ee la marti qaadayna waxa ay joogeen hoos ayay martiqaad ay ku samaysanayeen ama ay ku qadaynayeen. Ninka gurigii iska lahaana aad iyo aad ayuu u faraxsanaa oo wuxuu dhahay maanta anigu waan ka raayay raggii qaraabtoyda ahaa ama hunguridoonka ahaa. Halkaas ayayna qadadoodii ku qadaynayeen. Beenhawaas iyo tiimkiisiina waxay ogaadeen in lasoo qiyaamay ee meeshaan dhagar loogu dhigay. Aad iyo aad ayay u naxeen. Beenhawaas ayaa wuxuu saaxiibadiis ku yidhaahday anigoo ayaa aqli keenayo ee adinka ii kaadiya. Markii dadkii ay soo baxeen ayaa Beenhawaas wuxuu soo istaagay derbiga asiga saaxiibadiis. Wuxuu yidhaahday meeshaan aroos ayaa ka jiro, laakiin aniga waxaa ballan igu ah waan isa soo tuurayaa, dhulkaas ayaan ku dhacayaa, geeri ayaana ka dhalanayso. Meesha arooska ahaana waxay isku beddeli doontaa qallaase iyo buuq. Wuxuuna iska dhigay qof soo boodayo. Ninkii guriga iska lahaa ayaa ku yidhaahday warniyo waa soo boodin, qado soo marabtiin waa lidin keenayaa. Meeshoodii ayaa qado special ahaa lagu geeyey. Ninkii waxa uu la yaabay sida ay uga adkaadeen nimankii qaraabtoyda ahaa. Wuxuu u jeestay saaxiibadiis, waxa uu yidhaahday ninkan waxaa la yidhaahdaa Beenhawaas, khiyaano kasta iyo dhagar kasta aad keentid wuxuu la imaanayaa mid ka daran, asaga unbaa aakhir kaa guulaysanaya. Kuwa xilligan joogana tabar looma helayo in waxooda loo diyaariyo. Asaas ku kala nabadgashiin maahane dhibaatadooda ma yara. Nimankii kale waxay yidhi anaga horay ayaan u soo aragnay Beenhawaas iyo tiimkiisa, kuwa laga libin helayo ma ahan. Waxaa fiican waxooda inaad marka horeba aad meel u dhigtid. Halkaas ayayna maanta sheekadeenii Beenhawaas ayay inagu eg tahay. Adigu dhagaystow maxaad ka fahantay sheekadan?